aqoonyahan iyo shaqo la'aan waa ardayad dhammaysay kulliyadda culuumta bulshada oo wax la qabta dhalinyarada maanta 3 sano ayay shaqo la'aan ahayd. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa sheekadeeda maqlay maamulaha beerta xayawaanka oo ku taalay meel aan sidaas uga fogeyn xaafadooda. Wuxuu u soo bandhigay inay beerta ka shaqo bilowdo oo ay buuxiso booska goosha waa libaaxada dhadige oo dhimatay dhawaan. Wuxuu u sheegay in libaaxu la dareemayo dadkii beerta soo booqan jireen ay yaraadeen daruuftu ka adag. Gabadhii way aqbashay shaqada loo soo bandhigay. Waxay ka hawlgashay beertii xayawaanka iyadoo ku labistay maqaar libaax oo loo diyaariyay. Waxayna gashay shabaqii libaaxa. Maalin walba 8 saacadood ayay shaqayn jirtay. Dalxiiskii beerta ayaa sare u kacay maadaama gool cusub la keenay beerta. Maalin maalmaha ka mid ah waardiyaha ayaa hilmaamay inuu albaabka u soo xiro shabaqa libaaxa. Libaaxii waa uu soo baxay wuxuuna u soo dhaqaaqay dhinacii gabadha oo cabsi darteed aamintay inay maanta gacan gashay. Geeri ayay ku tala gashay. Libaaxii ayaa u soo dhawaaday wuxuuna ku yiri warkaaga waan la socdaa waxba ha biqin. Waxaan ahay Khalid oo master degree ka haysta cilmiga maamulka iyo maareynta.